kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin waaba lagu naanaysi jiray generaalka Dahsoon waa kuma Qasim Suleymani muxuuse dilkiisa bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka uga dhigan yahay warbixin dheeraad ah iyo falanqeyn aanu dhinacyo badan ku eegi doono ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxa ku yaala mid kamid ah kaymaha ugu waaweyn adduunka iminka kaymahaasi halis ayay ku jiraan warbixin ayaanu ka eegi doonaa Balanbaalista Afrika ayaa baadi goob loogu jira saynisyahano Faransiis ayaa geedaha dushooda ka bidhaansanaya noolahan quruxda badan barnaamijka kaligna waxaanu ku eegi doonaa tiknoolajiyada casriga ah ee 2020 la filayo kala soco BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal anigu waa Maxamed Cabdi Xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aynu ku bilownay taliyihii ugu awoodda badnaa militariga Iran ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay magaalada Baghdad duqeyn xagga cirka ah oo Mareykanku la beegsaday ayaa lagu dilay taliyahan aadka ugu muhiimsanaa ciidamada Iran waa General Qasim Suleymani oo ah hogaamiyaha ilaalada kacaanka qaybta ciidamada Qudus arrintan iyada ah waxa ay dhacday iyadoo kolayo gaadiid ah oo galbinaya generaalka reer Iran lala beegsaday gantaalo waxa generaalka la socday dhowr qof oo aad ugu agdhowa awoodda ciidanka dalkaasi Iran haddaba maxay arintani la macno tahay haddii aanu eegno ninkani waa nin mar lagu naanaysi jiray oo la oran jiray waxa uu ahaa generaalka Dahsoon waxa uu saameyn weyn ku lahaa ama uu ku lahaa gobolka dhimashadiisuna waxa ay si weyn u rixi doontaa bariga dhexe Muriid Xaaji Cabdi ayaa eegaya taariikhda jaranka madaxa ciidamada qaaska ah ee Qudus Qasim Suleymani wuxuu ahaa hogaamiyaha howlgallada Iran ee bariga dhexe taasi waxay ka dhignayd inuu ahaa sarkaalka ugu quwadda badan dalka isagoo si toos ah ula xiriirayay Ayatollah Khomeini ilaa iyo sanado yar ka hor si qarsoodi ah ayuu howlgalladiisa ku watay balse dhawaan General Suleymani doorkiisa wuxuu noqday mid u soo baxay dadweynaha isagoo si weyn caan uga noqday Iran oo idil dalka Suuriya waxaa laga qadariyaa inuu ahaa hanaankii uu madaxweyne Bashar al-Assad isaga dhiciyay mucaaradka isagoo dib ugu qabsaday magaalooyinka waaweyn sidoo kale wuxuu ahaa qofkii dejiyay qidadii ka dambeysay dagaalkii ay Iran kula jirtay IS inkastoo cilaaqaadka Iran kala dhaxeeyay Mareykanka ay weligeed ahayd mid aan xasiloonayn dagaalka ay kula jireen IS-ta Ciraaq ayaa sababay inay isla shaqeeyaan wuxuu dunida kala kulmay dhaleecayn ku aadan doorkiisii 2014 wasiirka arrimaha dibadda Canada ayaa ku tilmaamay inuu ahaa sarkaal argagixiyay gobolka oo ay dadku u haystaan halgama maadaama uu la dagaalamay IS taasi ayaa siyaasiyiin badan oo Ameerikaana ku raaceen Iran gudaheeda dadka qaar ayaa aad u qadariya halka kuwa kalena ay aad u neceb yihiin waxaa jirtay mar taageerayaashiisu rabeen in militariga uu ka baxo kana qayb galo loolanka madaxweynaha ee 2017 hase yeeshee waxaa kaloo jiray walaac ba'an oo ku aadan in ciidamada ilaalada kacaanka ee hogaaminaya ay la wareegi kareen aqalka madaxweynaha waagaag dawladda Iran ayaa dilka generaalka waxa ay jawaab ka bixisay jawaab adag ay ka bixisay waxa ay wacad ku martay inay argoosi sameyn doonto hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khomeini ayaa bartiisa Twitter-ka ah fariin uu soo dhigay waxa uu sheegay in jawaab xoogan ay sugayso buu yiri dambiilayaasha waxa uu la jeedaa Mareykanka sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran waa Javad Zarif ayaa isna bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay fariintan waxa uu yiri Mareykanku waa argagixiso caalami ah waxana uu sheegay in Mareykanka uu qaadan doono mas'uuliyadda ficil xumada uu isagu geystay dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay sawirkan
oo ah calanka Mareykanka in yar kadib markii la soo sheegay in uu soo baxay warka weerarka ay Mareykanku qaadeen. Haddaba haddii aanu eegno kumaan kun oo qof ayaa waxa ay ku banaan bixeen magaalada Tehran iyo magaalooyin kale oo dalkaasi Iran ku yaala iyagoo cambaaraynaya waxa ay ku tilmaameen dambiyada Mareykanka. Waxaas isweydiin mudan maxaa sababay in xiisadan la yaab kale ay cirka isku shareerto. Mareykanku waxa uu weeraray saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada Iran ay taageerto waxaana ku dhintay 25 qof. Waxa ay ku sheegeen in ay ahayd argoosi dhimashadii muwaadin Mareykan ah oo dilkaasi oo Mareykanku ay ku eedeeyeen maleeshiyada Kataib Hizbullah. Haddaba dibadbaxayaal careysan ayaa iyagu waxa ay isugu yimaadeen afaafka hore ee safaaradda Mareykanka ee Baghdad kuwaas oo ay isku dhaceen ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. sidoo kale waxa waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in General Soleimani uu dagaalkaasi amray. Xalayna in ka badan 600 oo ciidamada Mareykanka ayaa tagtay dalka Ciraaq dariska la ah Kuwait taasoo ahayd dib u xoojin. Kasra Naji oo ka tirsan BBC-da qaybta afka Farisiga ayaa ka waramaya saameynta iyo falcelinta Iran. Iranian leaders have all promised a big revenge. hogaamiyaasha Iran waxa ay wacad ku mareen in ay aarsan doonaan waxaana ay leeyihiin Mareykanka wax weyn ayaanu yeeli doonaa. Ma ogi waxa ay noqonayso tallaabada aargudashada Iran qaadayso laakiinse saaka oo dhan waxaa shiraya hoggaanka sare ee Iran waxaana ay eegayaan bal tallaabada ay qaadayaan iyadoo aynu ognahay in Mareykanku uu ku leeyahay saldhigyo badan wadamada gacanka Carabta iyo meelo kaleba. But my hunch is that they probably wait. Ayaa aniga waxay la tahay in Iran ay sugi doonto oo aanay ku degdegi doonin isla markaasna ay dooran doonaan waqtiga iyo goobta ku habboon ee ay ka qaadayaan tallaabada. Target and they will choose its time. Wagaag haddaba waxaa khadka magaalada Nairobi ku jira Dr. Ahmed Sheikh Ahmed Tiro ka faallada arrimaha Carabta. Ahmed Tiro ku soo dhawaad BBC Somali TV waad ku maasantahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho. Haddii aan su'aasha ugu horeysa ku weydiiyo madaxweyne Donald Trump oo ololihiisa ku soo galay siyaasadda inuu soo afjarayo dagaalada macno la'aanta ah ee bariga dhexe iminka ma u muuqdaa inuu dabbaasiin ku sii shubay. أهلا وسهلا. مدحوين ترامب waxaad moodaa wuxuu shalay yiri maanta inuunan garanaynin maanta wuxuu qol ay baaruud dhaxtaala ayuu kabriid ku shiday. dawladda Iran waligeed iyo Mareykanka waxaa ka dhaxeeyay heshiis hoose in la kala wareegto ahayd aanan la isjeclayn in mar ISIS la wada dagaalamo marna la isgarab marmara Suuriya iyo meelaha badan oo hadda ay xasiradaha ka taagan yihiin. laakiin waxaad moodaa markii ugu horeysay inuu hadda uu sameeyay Mareykanka amaliyad aad u xoog badan oo ka fajicisay dadka Iiraaniyiinta ahayd. ninkii Iran banaanka dibadda markii la joogo ugu qaabilsanayo howlgalka dibadda iyo dilalka dibadda ayuu maanta soo afjaray. taasna waxay keenaysaa waxay ku khasbaysaa saddex shay Iran ku khasbaysaa. kow inay si toos uga falceliso ayada oo hadda aynan isticmaalin gacmahii isticmaali jiro Hizbullah iyo Xuutiyiinta iyo xashdi shacbiga ee hadda laga sugayo shacabkeeda ay ka sugayeen. Ahmed Tiro waa su'aasha aan doonay inaan ku weydiiyo argoosi noocee ah ayaa Iran laga filayaa. Iran waxay ku khasban tahay hadda inay si toos ayada argoosi u samayso ay marna ku ekaanin gacmaheeda kala duwan ee bariga dhexe. sababtoo ah waa markii ugu horeysay oo fal toos lagu sameeyay sarkaal Iran oo nin sare ah. marka waxaan filaa inay Iran ay qaadi doonto tallaabo sida hadda maanta golaha amnigeeda uu sheegayna inay ka qaadi doonto oo noqon doono bariga dhexe dhammaantiis inuu noqon doono. noocee baa laga filayaa argoosi ay sameeyeen madad bay dilayaan. waxay sheegeen in ay sameyn doonaan in arrin uu ka shalayn doono Trump si khaas ah uga shalayn doono. marka kolba marka waxay isticmaali doonaan taktiikya ay ciidamadiisa ku weerarayaan hadii siday laga yaabo in ay dawladda Iran dawladda Ciraaq ay ku khasbaan inay ciidamada Mareykanka dalka saaraan. waxaa laga yaabaa inay weerar ku qaadaan saldhigyo yaryar ku leeyihiin dalka Suuriya. waxaa laga yaabaa inay Israel ay Hizbullah weerarto. Xuutiyiinta waxaa laga yaabaa Sacuudiga inay iyo Imaaraadka inay weeraraan. in waxaa laga yaabaa marka soft powerkeeda oo inay isticmaasho powerkeeda khaaska ayada leedahay ciidamadeeda ah. intaasba aad bay
ay suurtagal u tahay inay Iiraan samayso waqtigan iyada inkastoonan marna la sugaynin dagaal fool ka fool inuu dhaco Iiraan taas ay ogtahay in taas ay roonay saldhigyada Mareykanka kuma koobna Ciraaq oo kaliya gobolka dhan Mareykanka si weyn ayuu u joogaa ilaa geeska Afrika laga soo gaaro saameyn intee lag ay ku yeelan doontaa haddii aan si gaar ah u fiirino geeska Afrika geeska Afrika wuxuu ka tirsan yahay bariga dhexe maantana waxay sheegeen bariga dhexe dhammaantiis inay beegsani doonaan marka hadday u suurta gasho geeska Afrika ma deyni doonaan saan filayo hadday u suurta gasho waayo xuutiyiinta ayaa xagga ka dhow hadday u suurta gasho bariga dhexe qaybihiisa kalena way samayni doonaan laakiin hal ma dhici doono marna Iiraan ma samayn doonto dagaal foolka fool ma samayn doonto waayo dhaqaalaheedana ma karo awoodeeda kale oo ciidanna ma karto inay Mareykanka dagaal toos la gasho laakiin waxay samayn doontaa xantaxantaysi iyo weerar meel ay ku qaadqaado si uu Mareykanka oo darintiisa uga laabto bariga dhexe ama geeska Afrika dhammaantiis aad iyo aad ayaad u mahadsantahay bal markan haddii aan uga qodobada kale ku jira wararka caawa رئيس الوزراء غريغا إسرائيل مدحوينها قبرص iyo cambaariyay go'aankii baarlamaanka Turkiga uu ansixiyay qorshe ciidan loogu dirayo Liibiya qoraal ay si wada jir ah u soo saareen hogaamiyaashu waxa ay go'aankooda ku sheegeen inuu ahaa go'aankan mid sii kordhinaya dagaalada Liibiya inuu xadgudub weyn ku yahay xayiraadda hubka ee qaramada midoobay la saaray Liibiya ciidamada badda Australia ayaa daadgurayay ku dhawaad 1,000 qof oo ku go'doonsanaa magaalada dabka uu ka kacay Malakota xeebta Victoria mas'uuliyiinta New South Wales ayaa sheegay in dhammaan dadkii gacanta u baahnaa ay badqabkooda sugeen heerkulka oo aad u sareeyay ee dabaylo la filayo ama la saadaalinayo dhamaadka toddobaadkan ayay macnaheedu tahay in uu si laba lixaadsan karo dabka waxay noo soo socdaad qaybta dambe ku daawan doontaan barnaamijka Click oo aad u xiiso badan qadar nashaah dabadeed wali waxa daawanaysan caawiya caalamka waaniga waa maxamed cabdi xalaar badan xasuusiyo qodobka caawa warkeena ugu weyn General Qasim Soleimani oo Iran iyo bariga dhexe saameyn weyn ku lahaa ay Mareykanku ku dileen magaalada Baghdad iyadoo hogaamiyaasha caalamku ay horaantii December ku kulmeen dalka Spain si ay xal ugu helaan sida wax looga qaban lahaa saameynta isbedelka cimilada waxa haddana sanad walba sii socda baabaa 100,000 oo hektar oo kayma roobaad ku yaala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo taasoo ah tan labaad ee dunida ugu ballaaran kadib kaymaha Amazon inta badan beeraleyda ayaa gubaya geedaha si ay wax uga beertaan ama ugu beeraan dalaga miraha iyo sidii ay ugu isticmaali lahaayeen looxo ay wax ku dhistaan aadan maxamed cabdi saalimin ayaa inoo haya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ku yaala mid ka mid ah kaymaha roobka kuwooda ugu ballaaran laakiin qatarta ayaa haatan soo wajahday sababtoo ah dadka ayaa sii kordhaya iyo bulshooyinka ku nool miyiga oo nolol ka raadinaya tuulada Kimomba ee ku taala galbeedka DRC ku dhawaad qof kastaahi oo qaangaara geed ayuu goynayaa si ay uga dhigaan dhuxul taasoo ay iibinayaan si ay ugu noolaadaan ganacsigani aad ayuu muhiim u yahay maxaa yeelay ma haysano waddo kale oo aan lacag ugu samayno tuuladan waa habka ugu degdega badan ee aan lacag ugu heli karno carruurteenna si ay iskuul iyo daryeel caafimaad u helaan
80% qoysaska DRC waxa ay ku tiirsan yihiin tamar ahaan dhuxusha la shito sida laga soo xigtay wasaaradda deegaanka. wax soo saarka dhuxushu waa wadada kaliya ay dadku u isticmaalaan dhirta kaymaha. soo saarista alwaaxda iyo gubista kaymaha waxa ay sii adkaysay beerista dalagga miraha. intii u dhaxaysay sanadadii 2000 ilaa 2010 jarista dhirtu waxay xaalufiyeen 6 milyan oo hektar. intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2014 waxaa la baneeyay dhul gaaraya 7 milyan oo hektar, taasi oo muujinaysa in dhir badani la jaray laga soo bilaabo sanadadii 2000 ilaa 2014 marka la barbar dhigo 2000 ilaa 2010. Entre 2010 et 2014. Amisi Kabongo waxa uu darsayay kaymaha Congo 5 sano ee la soo dhaafay. Humaine qui donne cette pression sur hawlaha bini'aadamku waxay cadaadis ku kordhiyaan kaymaheena, waxay sababeen cawaaqib xumo badan sida in webiyadu qalalaan, taasi oo sababta in dadku ay haajiraan. waxa kale oo carqaladeyn ku keeneen xilliyada dalaga, waxayna dhaliyeen dhul saxara ah. aussi la sécheresse, la désertification. dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxa ay isku dayaysaa in ay yarayso xaalufinta kaymaha, waxaana ay u isticmaalaysaa dhaqaale caalami ah si ay u ilaaliso kaymaha. ujeedadu waxa ay tahay in dhulkeeda 63.5% ay dhirtu ku daboolnaato sanadka 2030. bal iminkan haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa. Liverpool ayaa buuxisay sanad aan marna laga badin horyaalka Premier League ee dalkan Ingiriiska kadib markii ay xalay 2-0 kaga adkaatay Sheffield United. 2 gool oo qaybtii hore ciyaarta xalay waxa kala dhaliyay Mohamed Salah iyo Sadio Mane. waxa ay ka dhigtay arrintaasi in Liverpool aysan guul dareysan 37 kulan oo isxiga. waxay mar kale 13 dhibcood oo nadiif ah ku hogaaminayaan horyaalka Ingiriiska. Wayne Rooney ayaa guul u horseeday kooxdii oo leelinayay waa Derby County. waa kooxdii uu heerka labaad ee horyaalka Ingiriiska horay ugu ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay. ciyaarta kooxdan heerka labaad ee Ingiriiska ee markii uu ciyaaray kabtankii hore ee xulka qaranka Ingiriiska ayaa guul 2-1 u horseeday inay kooxdu uga badiso Barnsley. Rooney ayaa 90 daqiiqo khadka dhexe ka ciyaaray. waxa uu dhigay goolkii hore, waxa uu dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Jack Marriott isaguna laad xoraha ayuu dhaliyay. ciyaaryahanka kooxda Arsenal waa Callum Chambers ayaa garoomada ka maqnaan doona inta ka dhiman xilli ciyaareedka. naadigiisa ayaa xaqiijiyay in Chambers ay jug uga dhacday kulankii guuldarrada 2-1 ay ka soo gaartay Chelsea. waxaa la qiyaasayaa in 24 jirka oo qalin lagu sameeyay Khamiista inuu garoomada ka maqnaan doono 6 ilaa 9 bilood. wagaag dad badan ayaa walwal iyo walbahaar ka qaada mindiyaha ama sakiimaha lagu isticmaalo qalliinka caafimaadka. iminka isbitaal ku yaala London ayaa tijaabinaya tiknoolajiyad loo adeegsan jiray ciyaaraha kombiyuutarada si ay wax uga qabtaan walaacaas. bukaanka ayaa madaxa loo gelinayaa ciyaaro muuqaal ah inta uu qalliinku socdo. waxa ay rajeynayaan in haddii lagu guuleysto mashruucan ay isbitaalo badan qaadan doonaan. Axmed Xaji Xasan ayaa eegaya. Austin Mills waxaa loo diyaarinayaa qalliin kadib markii gaari uu ku dhacay asagoo baaskiil wata. waxaa madaxa loogu xiray qalabka geemka dhabta u eg si loogu mashquuliyo xilliga qalliinka. taas micnaheedu waxa uu yahay inaan la suuxin doonin inta qalliinka uu socdo. bukaanno badan ma doonayaan inay arkaan ama ay maqlaan qolka qalliinka. xitaa haddii aanu sheego inaysan xanuun dareemi doonin, ma jecla in iyagoo aan la suuxin la qalo. xilliyadii hore waxaan isticmaalaynay dawada suuxinta, laakiin qalabkan wuxuu xirayaa maqalka iyo aragga. waxa uuna qof ka gelayaa duni kale, waxna ma dareemayaan. waxa keliya ay Austin uu arki doono ama uu maqli doono xilligan uu qalliinka ku jiro waa shanqarta geemka uu daarto. My shoulder moves occasionally. garabkayga marmar ayuu dhaqaaqayaa sida in aan dib u ogaaday waxa xaqiiqada ah, balse ma dareemin qalliinka dhabta ah. waxa aan dareemayaa sida in buur aan ku dul fadhiyo. mar kastana qof ayaa garabkayga nuuxinaya. dhakhtarada qalliinkan samaynaysa Shamima Umarji waa hogaamiyaha tijaabada la samaynayo. haddii bukaanada la dhex geeyo bey'ad kale, xoogaa waa walwal. si buuxda ayay u soo jeedayaan. waxay maqli karaan shanqarta iyo hadalka meesha ka jira.
qalabkan jiimka ee dhabta u eeg shaki kuma jiro inuu ifafaalo fiican u yahay aad ayaan ugu farxay markii dr shamiim ay ii timid oo ay i weydiisay in aan qayb ka noqdo guul weyn ayay ahayd waana ku faraxsanahay marka laga reebo gacanta aan dareemayay inta kale iska caadi ayaan ahaa teknolojiyaddan casriga ah waxaa hadda loo adeegsanayaa qalliinnada gacmaha oo keli ah balse waxaa la rajaynayaa in qalliinnada kale ee caafimaadka loo adeegsan doono balanbaalis qalimale ayaad hore u maqli jirteen balanbaalista weyn ee Afrika ayaa ah cayayaanka adduunka ugu daahsan waa balanbaalis aynay saynisyahanadu wax badan ka aqoon Ibrahim Jaamac ayaa ka warramaya waa inaad qirato halkani waa goob qurxoon waliba waxaad arki doontaa meelo ka sii qurxoon kaymahan waxaa ku dhex qarsoon balanbaalis laakiin balanbaalis qalimale uun maaha nimankani waxay raadinayaan balanbaalista la yidhaahdo Papilio antimachus oo ah ta Afrika ugu weyn raadinteedana waa lagu daalay waxaan isticmaalnay habab kala duwan waxaannu baarnay labada dhinac ee webiga dhirta dusheeda waxaannu eegnay caleemaha waxaan kaloon isticmaalnay diyaaradaha droonka ilaa hadda halka ugu dhow ee ay gaadheen waa muuqaalo farshaxan oo halkan lagu xardhay iyadoo ay ka muuqato balanbaalista cajiibka ah ee iyadoo midabada liinta iyo bunniga ku leh baalasha kooxdan ayaa rabta inay daraasaad ka samayso oo ay fahmaan balanbaalistani inta yar tahay iyo bal sida ay u korto laakiin hawshani ma dhib yara waxaannu iminka joognaa kaymo lasoo dhex galay oo macdanta laga qodayo taas oo hawsha sii adkaynaysa xayawaanka kale laftoodu halkan ayay ka ugaadsadaan baaritaankan weli guul lagama gaadhin laakiin cidina ma rabto inay quusato kayntani sirtoodu way ku qarsoon tahay raggan ayaa rabaa inay ogaadaan sirtan internet awood leh iyo guryo casri ah sanadkan 2020ka ma rumoobi doontaa riyada ah in awood xoogan oo xagga internetka ay dadka caalamku helaan toddobaadkan iyo kale Cusmaan Cabdi Xasan ayaa eegaya waxyaabaha ugu waaweyn ee aan filan karno sanadkan 2020 waa sanadka jiilka labaad ee isgaarsiinta telefoonnada habka loo yaqaano 5G horay ayay u soo baxday balse in meel kasta laga helo weli lama dhammaystirin dhammaan howlahaasi waxay hirgelayaan sanadkan shirkadda Apple waxay soo saaraysaa telefoonkeeda la shaqayn kara adeegga la yidhaahdo 5G bishan Sebtembar wax kasta si xawli ayay ku soconayaan goordhowna waxaa si toos ah looga heli karaa adeeggaasi filimada iyo bandhigyada telefishinada iyo cayaaraha kombiyuutarada waxaad filataa in guryo badan laga helo sameecadaha internetka ku shaqeeya ee lala hadlo adeegyo badan ayayna bixinayaan maadaama waxyaabaha internetka ay hadda si rasmi ah u shaqaynayaan agabka guryaha laga soo bilaabo kuwa cunnada lagu kariyo iyo gambaleelada albaabada ku xihan waxa ay ku shaqaynayaan internetka taasina waxay ka dhigan tahay in wax badan ay sahal noqdaan balse walaac badan ayay keeneen oo ku saabsan xogta gaarka ah ee dadka u qarsoon arrimaha kale ee walaaca leh ee ku saabsan waxyaabaha dadka u gaarka waxaa ka mid ah habka aqoonsiga wejiyada maahan oo keliya in aad telefoonkaaga ku furato wejigaaga meelaha guud ayaa lagala soconaya haddii wejigaaga uu ku jiro liiska kuwa la mamnuucay waxa ay tiknoolajiyadan kaa celinaysaa in aad gasho ruwaayadaha iyo garoommada kubadda cagta kuwa u ololeeya arrimaha dadka u gaarka ah ayaa ku baaqaya in laga joojiyo adeegsigooda goobaha guud balse kuwa taageersan waxa ay qabaan in ay gacan ka geysanayaan in dadku ay ammaan helaan sanadkan 2020 waa wakhtiga ay farsamada gawaarida korontada ku shaqayso horumari lahayd kadib sannado ay ciwaanada haysatay shirkadda Tesla la yiraahdo warshadaha gawaarida sameeya sida Ford iyo BMW ayaa soo saaraya gawaari koronto ku shaqaysa balse waxaa la filayaa in horumarkoodu uu gaabis noqdo gawaarida iswada weli wadooyinka kala sarreeya ayay sababtu tahay maadaama aysan farsamada hadda jirta la jaan qaadi karin inay taasi ka gudubto xusnow wararka ugu dambeeyay ee wararka BBC-da waxaad ka heli kartaan barteena internetka waa bbc.com/somali
inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa ee caalamku aad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo jimco wanaagsan